nabarkii isha kaga yaala iyo baambaas la qabaa oo uusan la ogaan karin saxarada ka socota nabarkii isha kaga yaala iyo lugihiisa saa oo la qalqaloocdeen oo sidaa ula noqday بسم الله وعلى بركة الله أما بعد إخواني أنا علي محمد صالح إمام كمركز التوفيق الإسلامي وحنجعل الله استي إن أنا إيو علماء نوروي عدكود عد مقل دونتان إن إذا لو ذاقنو ظرف سو زيادي ودباتدي ساله waxaa lainoo soo sheegay wiil yar oo 10 jir ah Ibrahim Nuur la dhaho jooga ifo gaadhadhaab inuu dhaawac u soo gaar 2018 isha ayaa qoray ka galay kadibna uu ku sii dhacay ilaa gudaha uu ka galay taana waxay keentay in neerbuhu dhaawac uu soo gaaro oo ilku beelo kadibna koomaba uu galo wiilkii isbitaal baa la dhigay xaaladiisana waa xaalad aad iyo aad khatar u ah saad ogtihiin wuxuu u baahday in dibadda loola soo cararo si markaa isbitaalada wixii dawo ah looga heli karo marka halka dawo looga helo laakiin waad garan kartaan dhaawacan intuu la eg yahay iyo qarashka intuu noqon karo wax lagu qiyaasay $50,000 buu qarashku gaari karaa haddaba waxaan jeclaysanay maadaama waxaanu hal qof aanu ka bixi karin xaaladuna saa u adag tahay in aan walaalahan muslimiinta meel kasta joogaanba inaan baaqan u dirno oo aanu wiilka yar ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiye xanuunkan allah ka qaada wixii aan tari karin inaan tarno marka waxaan istusnay dadkana inaan la cuslayn duruufta lagu jiro darteed masaa'ibta saan oo kalena ay badan tahay qof kasta lagu soo laabanayo $30 waxay tahay markaa ma laha kelmaddu markay u dhacday reer Norway wax 300 oo corona ka hadlaynaa dadkii dibadda joogana $30 canaawinta la soo sheegi doono aad ku arki doontaan kilibka kan shaashadiisana halka inaad kala xiriirtaan waxaanu haysanaa maanta oo 15 January 2021 saddex week baan haysanaa hawshaas aan rabno inaan ku dardargelino aan ku fulino iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ugu dhawaanaysaan hawshan waxaad ka qaban kartaan ka qabta waxaan hadda u gudbinay insha Allah Sheekh Maxamed Bocor ee ku soo dhow haddii hooyadii ay meel aado oo balabaladan asagoo jiifo uu roob soo hora maxamed uu roob uu ku do cid iga qaada iyo ii imaada iyo male shanqadha male halka uu oolo ama roob ku diri ama loogu imaani kaliya waa inay hooyadii halka كدل عيديان تأسقنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جزاه الله خير شيخ علي أنا محمد بعور هيدين لحد ليا ورالهي مال والبؤات جوكتان شنطة قاردود مشهد كنوش شهين دوني دا وحلي سوقية هي قفك مسلم كأنا قفك كلا مسلم كوا ولالكي نب مركي الله شيغو إنو دنقضه ayaa maaragtay ay tahay oo diinteena taana fartay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa noo sheegay muslimiintu inay jir waaxid ay yihiin مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وكي حديث النبي عليه الصلاة والسلام نوت المامي إذا جير قرى بركي لشيء هذه قيب كامده أي حنون صنتي مسيحا كرتيد دمانتي النسيدة صانة سيدا دراديد كربض قفكم مركي هاي سهدات كفايد وقفك أغرى كفايدي سنة أديقوا ألكوا بدبادنية nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qof mu'mina qofkii dhibaato haysataa ka qaada dhibaato adduunyo haysataa ka qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo ee daran ee qof walba uu isleeyahay irbad in la egya camalkaaga kugu dara dhibaatadaas maalinta ilaahay ka qaada qof culays haysta qofkii ka qaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada uga qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo culayskeeda ayaa qofkaasi uu ka fududay dhammaanteen waxaan ognahay adduunyo aakhira inuu rabbina xafidaan jecelna walaalayaal runtii haddii la isugu tago gacmo wada jir bay wax ku gooyaan baa la yiri sheekhu hadda wuxuu ka dhawaajiyay $30 haddii la helo 2,000 oo qof oo $30 bixisa bimacnaa 30 sheekha markuu idin leeyahay micnaheeda ma aha ka badan waad baxsan kartaa oo waad ka badsan kartaa 50 baad la bixi kartaa 100 baad la bixi kartaa waxaad baxsata adiga iskale laakiin inta ugu hooseysay buu sheekhu ka soo qabtay 2,000 oo qof haddii la helo oo $30 bixisa waa $60,000 lacagtuna saasay ku dhantahay
ilaahay idinkii biidni illaahi albaari hawshaan ka qayb qaadanno dhammaanteen aanu kacno waa ubax yaroo soo koraya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qofkii wax ku darsade ubad leh in ilaahay ubadku xafido ilmaha waa ilmo yaroo 10 jira qofkii ubad leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ilmaha u naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadkiisa ha u xafide ha u barakeeyo qofkaan ubad haysanin oo ilmaha yar u naxariistaan ilaahay ubad khayr qaba ha ku irsaaqo biidni illaahi albaari rabbi baan ugu baryaynaa ilaahayna tawfiiqda ha ina waafajiyo dhammaantii hawsha aanu kacno waan isugu tagno jir qura baan nahay aan isu damqanno waa ilmaha yar ee liita ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo hadeerna waxaanu dhiibayaa sheekh axmed cabdi oo iga dambeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد مركور إلهي سبحانه وتعالى ما هدسكله ولا لا مسلمين تا أي كليب كان وقاري دونو dadka Norway jooga iyo daafaha caalamka kala jooga dhamaan afkan Soomaaliga fahmaya kuna hadlaya waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa Ilaahay inuu tawfiiqna waafajiyo walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu jecel yahay qofka barakaysan ambiyadii sida nabiga Ciisana Ilaahay wuxuu ka bariyay wuxuu sheegay inuu Ilaahay ka dhigay qof barakaysan wajacalani mubarakan aynama kunt marka mufassiriinta markay macneynayaan waxay sheegeen inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof barakaysan ka dhigay wuxuu yiri Ilaahay wuxuu iga dhigay midka xawaa'ijta dadka ama baahida dadka wax ka qabta khayrkana ula yimaada amarka macruufkana amra nahyigana ka reebay kuwa la mid ah midda kale qofka muslimka waxa la rabaa walaalkii kale muslimka ah sida hadda Dr. Ali iyo Sheikh Bocor ee sheegeen waxa weeyaan inuu anfaco walaalkiis xilliga ugu baahi badan tahay nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah jalla wa ala waxa uu caawiyaa adoonkiisa intuu walaalkii kala caawinayo nabiguna waa yiri calayhi salaatu wassalaam ahabbu an-naasi ila Allah anfa'uhum lil khair riwaayad kalena waa leedahay khayrukum إن رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم كسونا تحوى أنفع وحاجة نكون خير بدن متكين نكون أنفع بدن سيا درادة دمانتنا أنا قص كدوبا أن كقيب قادنا العتو ولالك أسيسيد وحير حاجة كبحي وآخر وحوين كون نقنايو إلهي سبحانه وتعالى نقبله أن لحظة حرنا ما أنتو كلا الأسبوع هاي إلهي سبحانه وتعالى أنا هنقدر كوي قاعن لي بحق كجيستا دنبيقون إله ودافع ولا كان عافمات سيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا حولي باشا حسين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله إخوتي في العقيدة وحوية سيدا علماء الناس والشيغان كاير تبنجير كأ أو يسوغو تبنجير أمانتا إشي سيكوايي sidana loo tilmaamayna ki yaraa waxa weeye isdhaqaajis mare hadda wuu jiifaa meel buu jiifaa in la rogo mooyaan isma rogayo waa neerfayaashii baa wax noqday marka dhakhtarka la yidhina dhakhtarka wax uga qaban karaa intaa waa in dibadda la geeyo qiimihiina waa kaa la idiin sheegay dhammaanteen ama caruur baan dhalay ama waan la dhalanay oo walaalaheen bay yihiin ama annagaa dhalay marka waxa weeye wuu dareemi karaa ilma aad dhashay ama kula dhashay oo 10 jir ah oo maanta ilaa aantii ay u dheertahay inuu isba dhaqaajin karaynin waxaad kaga quusatid marka yani maartay culayska ay arintaasi haynayso culimaduna ay noo sheegeen yani maartay qof muslina culayska dulqaada inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta uu baahan yahay inuu Ilaahay ka dulqaadayo isagana culays ogowna waxaad ku baxsatid isaga inaan kan aan hadda aan maarta aan idin la hadlayno iyo cidii kale la midka aad kula baxsatid in wax adiga ku yaalo naftaada aad u dhigatay ay tahay kow aakhirada waa u dhigatay wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra waxaad naftiina u hormarsatiin ilaahay agtiisa ayaad ka helaysiin isagoo si inta aad baxsateen ka khayr badan oo ka maartay aad uga badan ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala marka adiga waxa iskale adiga maartay meel dhigtay awlaadaadana ilaahay waxyaabo kuugu badbaadinay kamid tahay canuga yar hadii aad ka danqatid adigana caruurtaada waxyaabaha ilaahay kuugu badbaadinayo ayay kamid tahay adigoo nool iyo adigoo maartay muxuu ahaa dabadaaba inuu maartay hadii aad ka hormartid caruurtaada marka ikhwati fi al-aqeeda
وحوي الجزاء بجنس العمل هدي أدمانتا أنحدت أو كقيب قارتت أديقنا وحد هاي محو إلهي أكتيس سبحانه وتعالى أيات كل هاي أبالك آنط لقتي وهنكو علي آيات مر لبادي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هل بخيرين انت لعقت أنا الله الشيء ووحي روي انت تكون درسان كرتيد هدي أتكون درستيد ووحد أضيق لقتي وبالله التوفيق والله أعلم